وزيرك هوري وزارة ديبودجينتا سوماليلاند عبدالرزاق علي عثمان عبدالرزاق حبيب oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shir jirayd ku qabtay hotel rays ee magaalada Niborama waxa uu ku shaaciyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu yahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi anigu Cabdirasaaq Cali Cusmaan oo ah wasiirnaha waxaan ku soo biray xisbiga wadani bishii February maalmii diiwaangelinta gobolka waxaan maanta cadeynayaa inaan musharaxay warashaxa xisbiga jagada madaxweyne ku xigeenka inaan u tartamayo aanan islaahay waa qaban kartaa wax badanna waad ka qaban kartaa anigu kartideeda iyo wixii wad leedahay sida dartiin waxaan u dhahay Somaliland ama baaweynta xisbiga wadani aan ka codsanayaa inay siiyaan taageerada عبدالرزاق علي عثمان عبدالرزاق حبيب oo hadalkiisa sii wataaya baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ee dagaalku ku dhexmaray bariga Somaliland gaar ahaan gobolka Sanaag walaalayaal xabad wiil ma keento walaad waad soo marteen waxay tahayna waad garanaysaa labada beelood ee walaalaha waxaan leeyahay maslaxad iyo walaalnimo walaal ku dhamaysto dagaalkaana ilaahay naga dimiyo waxa weeye ilaahay qalasa inaga dhaxsaaro ilaahay iskiin karisiyan leh inta ay naga aqbalaan ilaahay waan karjinayna isku soo wada duubo dhawaan waxa la filayaa inuu shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka qabsoomo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo tarayso siyaasiyiinta u taagan musharaxnimada jagadaasi Jaamac Xuseen Jaamac Dude telefishinka caalamiga ee Somali Cable gobolada galbeedka Somaliland